dowladda federaalka ah maxay ku tiri markii aad diiday inaad meesha dhaafto waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa ayma haddii sanado buuq aad wax ku heshay sana walba ku heli maysid kaad ku dhiman lahayd soo soco السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا ونكسن داوديال مeel kasto naga daawaneysaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka KNA oo alaabad kala socotaan kanaalkeenan KNA barnaamijkeena kaftanka KNA waxaan alaabaan wareysiyo kooban la yeelanaa madaxda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed barnaamijka kaftanka KNA aanay cidina shaashadiisa ka maqnaan doonin haddii ay baydmo oo cid kasta aan isleenahay haddii ay baydmo way ka soo muuqan doontaa barnaamijkeena kaftanka KNA maanta yaa marti inoo ah maanta barnaamijkeena kaftanka KNA waxa miiska inoo saaran isla markaana su'aalo kooban oo kaftana weydiin doona madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe عينكو أديقون عدوك إلاشون عايها قتليان أحدكو مريان اللي قيقوك متكسكا أردكا بردعي أدون سيغال جيرا سوما أوغا هورتا سوما أوغا عفاقي إنو قرأي سوما أوغا بيها كوان بحي سوما أوغا أماه إناد قوليدا هاي سوما أوغا مدن مدحوينه بريي u dambeysay waxaan ognahay in maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda dhexe aan xiriirkoodu wanaagsaneyn isla markaana ay dawladda dhexe taytalkaagi qeylqeyl gelisay bal adigu horta maxaa tahay ka Axmed ahaan bal isu ka nacdee aanu madaxweynaanahay dawlad yar baanahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo gelayaa meeshaan doonaan xoolo u doonanaya mudane madaxweyne yaa garan karaya dhibaatooyinkii waddanka naga soo qabsaday jabhadeyntii iyo weliba rafaadkii aan u soo marnay aniga iyo adiga inaan xilkaas aad maanta hayso aad soo gaadho qof waliba qurba joog ma garan karayso ninkii gudaha joogay baa garan karaya dhibaatada dhacday iyo nooca ay ahayd iyo sida ay iyo dagaaladu noocyaday gaadheen mudane madaxweyne farqiga u dhaxeeya shabaabka iyo dawladda bal dhankaaga noo sheeg laa farqa bayno wax farqiya oo maanta u dhaxeeya dawladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro subxaanaka yaa cadiin bal waxa soo socda eeg dawladda federaalka ah maxay ku tiri markii aad diiday inaad meesha dhaafto waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa ayma haddii sanado buuq aad wax ku heshay sana walba ku heli maysid kaad ku dhiman lahayd soo soco mudane madaxweyne maxaad inta badan ka cabsataa oo markaad maqasho hurdada kuu diida haramcad iyo shabeel iyo dhibaato dawladaha Soomaaliya ku dhex jira ee Turkiga Qatar iyo waliba Ethiopia maxaad ka leedahay Turkiga waxaan leenahay ciidankaaga aad tababarayso jooji dawladda wax lagu aaminaa ma joogin Qatar waxaan leenahay shilimadaada jooji Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socota jooji Kenya maxaad uga tagtay mudane madaxweyne Kenya waa waddan aan derisnahay xuduud 800 aan leenahay dagaal shabaab ay nala soo gashay waan uga mahad celinaya anu intaasi waxaan leeyahay waa shay meel looga wareega aan lahayn subxaanaka yaa cadiin mudane madaxweyne gabagabadii iyo weliba su'aasheeda ugu dambaysa bulshada Soomaaliyeed waxay ku daashay siyaasadda iyo weliba isjiidkiina oo aad midba midka kale ugu jawaabaysaan marka bal siyaasadda naga dhaxsaar waxaan u baahanahay sheeko yar oo kooban oo aad bulshada Soomaaliyeed la wadaagto nagagana qosliso ninba islaam baa wiil dhashay abkan buu ahaa qof ilmahan hadlin buu ahaa waxay tii ilaahu iga hadli u aamusnaay hal mar buu hadlo wuxuu yidhi hooyo sidii kale ma ku yeelaa waxay tihi ilaahu iga aamusiin aad baan ugu mahadsantahay waxaan idiin rajaynayaa guul